بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dadka meel walba joogtiin caafimaad waara Ilaahay nooga barya. Sheeko yar raba inaan idin la wadaago oo ku saabsan xanuunada nafsiga. Marmar nolosha waxa iskaga socotid ama u caafimaad qabtid ama nolol maalmeedkaaga u wadatid waxa kugu dhacayo in kaas yani wax aadan filaynin inay kugu dhacaan ama turo aadan filin inay kugu dhacaan taasay ku sababto xanuun nafsi inuu ku imaado. Waxaa jirtay gabar yar oo waxa ka sheekeynaa cudurkan la dhahayo waxa ka sheekeynaa xanuunkan la dhahayo OCD ama shakiga ama waswaaska. Yani soo ugu bilowday gabar yar oo ardayad ahayd oo dugsi sare dhiganaysay. Waxay ku jirtay form 4 sanadkii ugu dambeeyay form 4 markay ku jirtay maalin waxa dhacday waxa u imaaday gabar saaxiibteed ee sheekaysanayeen markaas waxay weydiisay maxaa jeceshahay inaad noqotid marka iskoolka dugsiga sare ah ka baxdid. Su'aashaas gabadhan kale caadi u weydiisay laakiin gabadha la weydiinayo waxay ku noqotay wax maskaxdeedii ku dhagay yani wax weyn ee la noqotay hadalkii wax barbaarish diyaaris u baahan wax in laga fikiro u baahan wax culeys u baahan yani qaabkaas u dareentay waxay noqotay su'aashii gabadha la weydiiyay in maskaxdeeda aqliyadeeda ay dhex fadhiisatay cod ahaan oo qalbigeeda ka yeerayo mar walba ay dhagaheeda maqlayaan yani wax iyada ku xirmay oo mar walba lagu soo celcelinayo mar walba cod waxay maqleysaa indhahay maxaa diyaarisay marka dugsiga sare ka dhameysid. way fakartay markaas waxay bilowday qolkeeda soo gashay waxay bilowday miis inay soo gadato miiskii buwaagay saartay qalimaanay dhinac u saartay xaashiye samaysatay bahalkan laga fiiriyo taariikhda soo saaratay yani wax badan oo waxay diyaarisay isleedahay waxay preparation ama diyaaris cusub u noqonaysaa kaalintaada dambe ee jaamacad ahaan geli lahayd. weli dugsiga sare iyadoo dhiganayso maalin walba si tartiib waxay sameyn jirtay waxay fiirin jirtay nidaamka ee buwaagta u yaalaan waxay fiirin jirtay qalin walba meesha uu yaalo waxay fiirin jirtay habeenkaas qodooyinkii ee qoratay si u qoratay inay weli iskugu aadan yihiin yani waxa u soo baxday shaqo cusub oo dheeri ah oo wax walba meeshooda ma u yaalaan nidaam يعني wax walba meeshooda tartiib u yaalaan. subax walba markay soo kacdo miiskii fiirinay way kontaroole way baxay iskoolkeedii aaday iskoolka intay ku jirto dhowr mar ee maskaxdeeda waxay u sheegaysaa miiski sidiisa ma yahay miiski ma nidaamsan yahay hadaadan miiska nidaaminin mustaqbalkaaga dambe ma nidaamsana hadaadan miiska nidaaminin mustaqbalkaaga dambe ma hagaagayo. inta meesha la fadhiyo maskaxdeeda waxay awoodi weynaysaa inay rakisto ama ay focus ka saarto waxa markaas dhacaya ama sharxaada loo sheegayo. kadib guriga markay u laabatay waxay bilowday maalmo kadib inay dhahdo miiska uu ku qurxan yahay laakiin agagaarkiisa wuxuu mar walba u baahan tahay si qaas in loo hagaajiyo ama si qaas in loo nadiifiyo. way qabtay waxay bilowday inay miiska agtiisa nadaamiso way ku socotay sariirteedii gaartay almuhiim laman ay qolkeedii dhan obsessed ay ku noqoto yani ay ku noqoto qolkeedii inuu yahay qol perfect oo meelna aanan ka qaldanin. intaas ku jirto maxaa sii yaraanayo fahamkii waxbarashada fahmaysay xiriirkii asxaabtii ee la lahayd xiriirkii qoyskeeda la lahayd yani waxay aad gabar qoyskeeda jecel la ciyaarto la cunteyso la muranto la dagaasho farxad la qaadato yani wuxuu ahaa nolol caadi oo waxay ku nooleed nolol dadka dhan istaahilaan oo caadi ah laakiin markaan waxay bilowday inay soo xarqto mar walba ay ka fikirto qolkan ma nidaamsan yahay agaarkiisa ay cagasaarti wixii ku weynaaday markii dambe waa laga baxay dugsiga sare way dhameeyeen si ku dhameysabo maalin markaas xabteeda u imaadeen waxay ugu imaadeen caadi ahaan baashaal marka hore banaanka la fadhiyeen way la cunteynaysa mar walba asxaabteeda la joogto ama ay la cunteynayso waxaa jireysay fitrooyin badan ee maskaxdeeda bixisay yani aqligadeeda ee bixisay ee aadeysay organization maxaa nidaam qolkaaga soo yahay
إذا قصدي وحوها مستقبل كذا إن النظام لكن عقليتي وحي كل دكتي نظام أنت أما توتوس أنت أما قرح أنت قل كذا marka dadka la fadhiso ama imtixaan ay galayso ama ay wax cunayso way baxsan tahay Soomaaliintaas waxa ku furmay walaac asxaabtaada haday qolka galaan seeka yeeli doonaan asxaabtaada haday qolka galaan maxay sameyn doonaan yani meeshaas sheekadii iyo qosolkii iyo way ka maqneed markii ugu dambeysay la baxayay sidii ay ka cabsanaysaa dhacday waxay dhahaan soo baxno soo tus qolkaaga qolkeeda soo galeen mid iidoo gacmeeda wasaqiyeen sariirta iska kortay mid qalimaantii ku bururtay mid miiskii aaday yani qolkii waxay u galeen si yani dadka caadiga qol saaxiibka ama saaxiibta ay leedahay saa u carareys laakiin iida waxay la noqotay yani jeesh ama dad badan inay hal mar soo carareen qolkeedii imaadeen oo mid walba wasaq ku tuturo yani waa image-ka ama masawirka ee maskaxdeeda markaas sawiratay gabadha يعني وحي حمل ويسه markaas hal mar waxay bilowday inay qayliso markay qaylisay way soo wada fiiriyeen maxaa dhacay dhahdeen dad fiican ma tihiin xaasidiina igu tihiin horumarkayga ka xun tihiin nidaamkayga ka xun tihiin yani wax aysan ka fiileynin ay dhahday marka asxaabtu way wada naxeen isku meel ay xigsadeen wax jawaabo waa la waayay yani kabahoodii wuxuu qaaqaateen way ka tageen markii asxaabta bixin kadib maskaxdeeda waxa ku soo dhacday inay tahay qof xun oo dadka gooynayso hadal xun dhehayso waxay qabsatay boos cusub maskaxdii ama aqliyadii meel cusub ku dhagtay yani waxay maskaxdeeda ku dhagtay inay tahay qof aan fiicneen qof dadka hadal xun kula hadlaayo qof dadka burinaayo qof xun yani waxay iska qaadatay image qaldan meeshaas markii waxa ugu sii bilaabatay ama ay ku sii xarootay noloshii doorkii ay ka qaadan lahayd waxay sii waday cideedii qaar kamid ah ka go'day waxay yani way aruurtay ilaa ay sariirta kortay markii ugu dambeysay ee u aragtay sariirta inay tahay meesha ugu dambeysay oo nidaamsan ee gali karto ama ay ku badbaadi karto marka meesha yani sheekadan macnaheeda waxay ahayd ma ahan in la kaalmeyn kari doonin ma ahan in wax loo qaban kari doonin laakiin macnaheeda waxay tahay marka aragtid qof ku dhibaataysan waswaaska ma ogid inta dib oo maraayo yani dibka oo maraayo ma ahan mid aad qiyaasi kartid yani qof caawinaad rasmi u baahan waaye adi maanta dhan banaanka marka joogtid baabuur guuxiisa dad hadalkooda xayawaan qayladiisa waxa maqashaa ma qofkaas gudihiisa waxa ka dhaxyeerayo buuqaas caadiga banaanka ka maqlaysid waxay ka dhaxyeerayaa qalbigiisa oo marba hadal siinayo oo hadal negative siinayo ama hadal cabsi gelinayo siinayo markii dambe hadda iyo treatment iyo daawo in loo bilaabay noqotay maanta sheekadaas maadaama aan meel ka soo fiirsaday waxa jeclaysan inaan la wadaago dadkayga wadaaga idin la wadaagayna waxay iga ahayd yani inaan wax un ka fahantiin xanuunada qaar say ku bilaabanayaan ama in loo kuur galo qofka xanuunka qabo yani in la caawiyo aad u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته